سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة iyo channelkeeni Dhoolacse oo MW oo maantana idin soo gudbin doona waraaq ku saabsan waraaqaha laga doonayo markaad xareysanayso scholarshipka. waraaqdaasi waa maxay? waraaqdaasi maxay ka kooban tahay? waxyaabo ku saabsan arrimahaas aynu ka hadli doonaa hadduu alla yidhaahdo. haddaba waraaqdani waxaa la yidhaahdaa waa study plan. waa waraaqada aad ku xusaysid qorshaha kaaga meel yaala waxbarashadan aad doonanayso intaad ku guda jirto iyo waqtiga aad soo dhamaysato. waa qorshaha kaaga meel yaala ayaad ku xusaysaa. waraaqadan ayaynu u gudageli doonaa. What is a study plan? waa maxay waraaqadani? A study plan book is a required document for a scholarship application with the applicant is talks about what he or she planned during his study and why he chosen this country. wuxuu ku yidhi waraaqadani waa waraaqad laga doonayo marka aad xareysanayso scholarshipka, sidoo kalena aad gudbinayso applicationada waraaqaha scholarshipka la xidhiidha ayaa sidoo kale waraaqadan lagugu weydiinayaa. waraaqdan qofka xareysanaya scholarshipku waxaa lagu yidhi waxa uu ka hadlayaa what he or she isaga amba iyadu waxa ay ka qorshaysatay amba qorshaha uga meel yaala waqtiga uu soo dhiganayo waxbarashadan uu xareystay. sidoo kale sababta uu u doortay dalkan uu waxbarashada ka xareysanayo, waxyaabaha ku qanciyay inuu scholarshipkan dalkan ka xareysto ayuu kaga sheekeynaya isla waraaqdan iyo arrimo kaloo la xidhiidha. iyadoo faahfaahsan baynu sii gudageli doonaa. qeybaha dambe aynu kaga hadli doonaa tusaalooyin iyo waxyaabaha ay waraaqdaasi ay koobsan doonto. marka qeexitaanka waraaqdani waa sidaas. Your study plan should include. haddaba waraaqadani maxay ka kooban tahay? waraaqadani waxa uu ku yidhi waxay ka kooban tahay your full name, magacaaga oo dhammaystiran, academic background iyo taariikhdaadii nololeed, kii waxbarasho, heerarkaagii waxbarasho ee kala duwanaa ee aad soo martay eed halkan ku xusay academic backgroundka. sidoo kale your personality, waxaad sidoo kale ku xusaysaa isla waraaqdan shakhsiyadda aad leedahay. yacni shakhsiyadda aad leedahay waxaan uga jeedaa waxa aad ka hadlaysaa naftaada ayaad ka sheekeynaysaa. qof sidee ah ayaa tahay? shakhsi noocee ah ayaa tahay? waxaan ahay qof firfircoon, arday karti badan, waxaa loo soo diray si wacan uga soo baxaa. adoo ka eegaya dhanka wanaagsan ayaad waraaqdan ku xusaysaa. sidoo kale halkan your plan of study waxaad ku sheegaysaa waxbarashadan aad xareysatay qorshaha kaaga meel yaala inta aad ku guda jirto, sidoo kale marka aad soo dhammaystirato. Reason is to study in this country, host country. waxaa lagu yidhi waxyaabaha kugu kalifay amba kugu qanciyey in aad dalkan aad waxbarashada ka xareysanayso in aad wax kusoo barato ayaad kaga sheekeynaysaa. qeybtaasna conclusion. sidoo kale waad soo gabagabeynaysaa waraaqada. waxaad kusoo gabagabeynaysaa intii hore qoraaladii hore aad soo qortay, sidii academic background, plan of study, reasons, waxyaabihii kuu kalifay ayaad soo khulaaseynaysaa. kadibna conclusion ayaad kusoo koobaysaa in yar oo muhiim ah oo aad kusoo xidhaysid waraaqdan. sidoo kale waraaqdan xaggeeda ugu hooseysa waxaad ku qoraysaa saxeexaaga iyo waqtiga aad qortay isla waraaqdan. haddaba waxaan idinku soo gudbin doonaa 3 talo oo aada u muhiim ah, sidoo kale idinka caawin doona waraaqdan qoritaankeeda. waxaa ka mid ah waraaqdan wuxuu ku yidhi qodobka koowaad, search it before. waa in aad marka hore search garaysaa inta aanad waraaqdan qorin. haddaba waa maxay? haddaba waa the host country's culture. dalkan martigelinaya
scholarshipka amba dalkan aad ka xareysanayso waxbarashada waa inaad dhaqankiisa baadhaa dhaqamadiisa sidoo kale thoughts about the educational institutes of the host country sidoo kale waa in aad soo baadhaa inta aanad qorin waraaqadan xaqiiqooyinka ku saabsan heerarka waxbarasho ee kala duwan ee dalkaasi leeyahay ayaad sidoo kale soo baadhaysaa prepare a good plan of study sidoo kale waa in aad diyaarsataa qorshe macquul ah qorshe ku saabsan waxbarashada aad soo baranayso inta aad ku guda jirto iyo waqtiga aad soo dhammaystirto kaaga meel yaala oo macquul ah oo qofka akhrisanaya soo jiita ayaad sidoo kale diyaarsanaysaa give a positive personality information sidoo kale waa in aad xaqiiqooyinka amba shakhsiyadaada gaar ahaaneed marka aad ka sheekeynayso waa inaad wax wanaagsan aad iska gudbisaa oo aada u soo jiita qofka akhrisanaya waraaqdan talooyinka yarna waxa weeye waa inaydu aada u xasuusnaataan inta aydan waraaqdan qorin sidoo kale haddaba waraaqdani habka loo qorayo waraaqdan sidoo kale maxay ka koobnaan waraaqdan imsa page ayay noqon kartaa the letter must be 1 page or 2 page waxa uu ku yidhi waraaqdan waxay noqon kartaa 1 page amba 2 page 2 page wixii ka badan ma wanaagsana sidoo kale size-ka xuruuftaadu ay leekaanayaanna waa 12 waa inaad font size-ka aad ka dhigataa 12 sidoo kale inch margins on all sides hareeraha qoraalkaaga waa inaad 1 inch ka dhigataa line spacingkaaga spaceka u dhexeeya laymankaaga waa inay 1.5 noqdaan intaasina waa muhiim inay raacdaan sample of study plan waxa weeyaan waa sample amba tusaale ku saabsan waraaqada study planka inagoo waraaqadii kasoo qaadanayna qeyb walba ku salaynayna qeybihii aynu ka soo sheekeynay ee ay waraaqadu ka koobnayd sida your full name and academic background inagoo qeybta ay khusayso kasoo jarayna tusaalahaas sidoo kale isla meel dhigayna first paragraph your full name and academic background haddaba baragraafka koowaad waxa uu ka koobnaanayaa your full name magacaaga oo dhammaystiran iyo academic backgroundkaaga nololeed iyo kaagii waxbarasho waxa aad ku bilaabaysaa sidoo kale uu ka koobnaanaya baragraafka koowaad magacaaga oo dhammaystiran my name is maxamed cali bukuri waa arday qoranaya waraaqada study planka waxa uu ku bilaabaya magacan my name is maxamed cali magacaygu maxamed cali I was born in the city of Hargeysa in Somalia amba Somaliland kolba siday u garanayaan waa arday ku dhashay Hargeysa sidoo kale as an only child of my family waxa uu ka mid waalidkood keligii ayaa ay dhaleen in 2015 I entered Almas University College at Faculty of Computer Science 2015 ayaa u galay jaamacadda Almas uu ka galay qaybta computer science-ka I studied that university at 3 years that were consisted 9 semesters waxa uu jaamacaddaas dhiganayay 3 sano saddexdaas sano oo ay ka koobnayd 9 semester I have learned more courses that relate about the computer such as networking programming also database sidoo kale waxaan dhigtay sagaalka semester koorsyo badan oo la xidhiidha computerka sida networking programming iyo database I also ended some practical labs that helped me to become an engineer of computer I graduated this university 2018 with great distinction wuxuu ku yidhi waxaan waqtiga faa'iiday sidoo kalena aan helay practical labs practicalo ku saabsan computerka oo iga saaciiday in aan noqdo engineer of computer science sidoo kale waxaan ka qalin jabiyey isla jaamacaddaas 2018 anigoo ku qalin jabiyey darajo oo sareysa marka kaasina waa baragraafka koowaad halkana baragraafka labaad your personality halkana waxa aad kaga sheekeynaysaa
shakhsiyadaada gaarka ah ayaad kaga sheekeynaysaa adoo dhanka wanaagsan ka eegaya. wuxuu ku yidhi by fact xaqiiqdii I am the socially active person with friendly nature, a good communicator indeed who is pleased with many friends. waxa uu halkan ku leeyahay waxaan ahay qof dhaqdhaqaaq badan, sidoo kale firfircoon oo dadka dhex gala oo dadka isku xidha, asxaabtiisuna ay aada u mahadiyeen oo aada u soo dhoweeyeen. sidoo kale waxyaabaha markuu aragtiyaha ka eegayo dhanka wanaagsan ka eega. marka halkan waxa uu kaga sheekeynayaa, waynu dul maraynaa, waxa uu halkan ku xusayaa shakhsiyadiisa gaar ahaaneed isagoo dhanka wanaagsan ka eegaya oo ka qiimeynaya, si ay dadka u diraya amba qof dad shakhsiyaadka waraaqdan u diraya ee khusayso waraaqdani si ay usoo jiidato shakhsiyadiisa gaar ahaaneed. sidoo kale halkan third paragraph study planning host country, waxa weeyaan baragraafka saddexaadna waxa uu kaga sheekeynayaa qorshaha uga meel yaala dalkan uu waxbarashada kasoo dhiganayo amba scholarshipkan uu ka xareysanayo. sidoo kale marka uu soo dhamaystirto isla waxbarashadaas, wuxuu ku yidhi I would like to apply for master's degree in computer networking. wuxuu ku yidhi waxaan xareysanayaa master degree oo ku saabsan computer networking computera. marka halka meelaha bracketka eedu kusoo xidhay waxa weeye host country waa waxaad ku buuxin kartaan dalkaad waxbarashada ka xareysanaysaan. waxaan uga jeedaa waa dalka waxbarashada martigelinaya amba aad waxbarashada ka xareysanayso ayaad halka ku xusaysaa. marka because from my current industrial job experience, past internship and my final project, I come to know the first practical application to the networking engineering. This caught my attention, created me. halkana waxyaabaha ku kalifay in uu master degreegan xareyso sidoo kale soo barto oo ayuu kaga sheekeynaya oo halkan kaga sheekeeyey in ay khibrad gaar ah oo u sameysay, sidoo kale shaqadiisii ay khibrad gaar ah u sameysay shaqadiisii hore uu kasoo shaqeeyey iyo sidoo kale shaqadii internshipka ahaa iyo projectgii uu ku qalin jabiyey waqtigii degreegiisa ay ku kaliftay in uu master degree networking uu u diyaar garoobo in uu kasoo barto master degreega. taas ayaa ku kaliftay my motto is in work therefore I would like to gain deeper theoretical and practical knowledge in certain managing more innovative. marka halkan waxyaabaha uu uga meel yaala in uu marka uu soo dhamaystirto in uu maxay ahayday uu qabto ayaa markaa waa in uu soo saaro projectyo uu iskii u ikhtiraaco marka uu soo dhamaystiro. halkan wuxuu ku yiri my studies with great hidden ability in myself I will try to cover with the best of everything. wuxuu ku yiri waqtigaan ku guda jiro waxbarashadayda waxa aan soo bandhigi doonaa karti wal oo aan leeyahay oo aada u sareysa, taasoo aan ku qaban doono wax wal oon qaban karo to accompany to the professors and university college in carrying our research and everything and exploring for a most exciting industry in the field of network system. wuxuu ku yiri sidoo kale waxa aan wax wal oo ay ii diraan sidoo kale jaamacadda ku saabsan waqtigan jaamacadda baranayo sideeda ayaan uga soo bixi doonaa. sidoo kale halkan wuxuu ku yiri after completion of my master study, markaan soo dhamaystiro waxbarashadayda I hope to be able to take part in maximizing my country research. halkanna waa qorshaha halkan wuxuu kusoo xusayaa qorshaha uga meel yaala marka uu soo dhamaystiro waxbarashada. waxa uu ku leeyahay markaan soo dhamaystiro waxa aan qorsheynayaa sidoo kalena aan rajeynayaa inaan ka qayb qaato ballaadhinta dhankan technology-ga dalkayga. marka wuxuu ku saleynayaa waxbarashadii uu soo bartay ayaa dib ugula noqonaya dalkiisii. yacni halkan waxaad kaga sheekeynaysaa sidii hore idinku soo sheegay baragraafkan saddexaad waa qorshaha kaaga meel yaala dalkan aad wax soo baranayso waqtiga aad ku guda jirto waxbarashadaada. sidoo kale marka aad soo dhamaystirto waxbarashadan maxaa kaaga meel yaala waxbarashadan aad soo baratay. markaa labada qorshe ayaad kusoo koobaysaa hadduu alla idmo. baragraafkan ugu dambeeya reasons to study in this country, waxyaabaha kugu kalifay in aad dalkan aad wax ka soo barato.
sidoo hore aydu kusoo sheegay waa in aydu wax ka baadhaan isla dalkan aydu wax kasoo baranaysaan sida dhaqamadiisa maxay ahayday jaamacadaha uu leeyahay waxbarashadooda kala duwan iyo heerarka ay ka taagan yihiin adduunka. waxyaabahaas ayaad kasoo baadhaysaa inta aanad waraaqdan qorin. markaa wuxuu ku yidhi reading the book is watching the news, analyzing and observing the people of the host country. I am really impressed by the way this individual is. wuxuu yidhi markaan soo akhriyay bugaagta watching with the news, sidoo kale wararkaan soo daawaday, sidoo kalena aan soo baadhay indheeyey dadka ku nool dalkan aan waxbarashada ka xaraysan. sidoo hore aan kusoo sheegay host country oo waxbarashada dalka aad ka xaraysanayso ayaad halkan ku sheegaysaa. markaan intaas soo baadhay bugaag akhriyay, sidoo kale warar ka soo daawaday dalkaas ku saabsan, waxaan la dhacay buu ku yidhi, sidoo kalena aan u khushuucay dadkani siday u caddeeyeen amba ay u qeexeen in ay yihiin dad shaqadoodii kasoo baxay, sidoo kalena dadaal badan geliyay dalkoodii si ay u noqdaan example dadka aan horumarka gaadhin si ay u noqdaan. sidoo kale the fast growing economic technology advancement of the global ranking educational institution with high reputation may create aspiration to the students and professionals for the better career perspective. Thus such sidoo kale waxyaabaha ku kalifay in uu isla dalkan wax ka soo barto waxa uu ku yidhi dhaqaalaha wacan ee sii koraya ee ay leeyihiin, sidoo kale dhanka teknolojiyadooda iyo dhankooda waxbarasho ee kala duwan, heerarka ay ka taagan yihiin adduunyada ayaa ii saamaxday, sidoo kalena igu kaliftay in aan waxbarashada ka xariisto dalkan. That's such kind of my confidence. Further, I am highly satisfied with the decision I've taken. sidoo kale halkan wuxuu ku qeexayaa amba ku sheegayaa in uu ku qanacsan yahay go-aanka uu qaatay inuu dalkan wax kusoo barto. halkana diverse cultural norms and values, the famous gentle hospitality of its people and all weather friendly relations between our countries since past promote bilateral trade, acceptance and peace to both sides and great clarity make me feel as my second homeland. halkana sidoo kale waxa uu kaga sii sheekeynayaa waxyaabaha kusii kalifay isagoo ka eegaya dhanka dhaqankooda oo ay yihiin dadka dalkaasi ku nool dad soo dhoweyn ballaadhan leh oo wanaagsan, sidoo kale labadooda dal in xidhiidh wanaagsan ka dhexeeyaan dhanka dhaqaalaha iyo dhanka xidhiidhka siyaasadeedba, oo sidoo kale u arko isagu dalkaas uu waxbarashada ka xareysanayo in uu yahay dalkiisii labaad. marka muhiimaddu waxa weeye baragraafkan afaraad inaad fahantid waxyaaba uu ka sheekeynayo oo ah sababta kugu kalifay in aad dalkan waxbarashada ka xariisato oo aad kaga sheekeynayso oo aad soo baadhayso inta aanad qorin qeybtan dhaqankiisa muxuu ku wanaagsan yahay, dhanka wanaagga adigoo ka eegaya dhaqamadiisa, sidoo kale waxbarashada jaamacadaha dalkani uu leeyahay, heerarka ay adduunyada ka taagan yihiin, dhaqaalihiisa, noloshiisa iyo waxyaabahaas adoo mar walba ka eegaya dhanka wanaagsan oo ammaanaya ayaad halkan ku xusaysaa. kaasina waa kaas. qeybta ugu dambeysa baragrafka ugu dambeeya oo conclusion ah oo waa baragrafkii aad kusoo xidhaysay, wuxuu ku yidhi concluding it with high hopes, I believe this application will receive your favorable consideration and I will be happy to provide any additional information you may need. I look forward to receiving your reply. waxa uu ku leeyahay halkan waxa aan rajaynayaa sidoo kale aan aaminsanahay applicationkan aan ku codsanayo waxbarashadan in si weyn loo tixgelin doono, sidoo kale waxaan aada uga faraxsanahay in aad sidoo kale waxaan aada ugu faraxsanahay buu ku leeyahay in aan bixiyo faahfaahin intaa in ka badan haddii aydu iga baahataan. I look forward to receiving your reply. sidoo kale wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa in aan idinka helo jawaab hadduu alla yidhaah.
halkan waxaa yaala qaab qoraalkii waraaqada study planka. sidan ayay u dhigan tahay baragraafyada marka laisku wada keeno iyadoo waraaqadu dhammaystiran marka ay dhammaystiran tahay. shantii baragraaf ay waraaqadu ka koobnayd oo dhammaystiran ayaa sidan u dhigan. marka halka ugu hooseeyana waxa weeye saxiixii qofka iyo waqtigii uu qorayay daydkii ayuu halkaa ku qorayaa. kaasina waxa uu ahaa habka loo qoro waraaqda study planka. waxa aan idin rajaynayaa in aydu si fiican u fahanteen, sidoo kalena guul ayaan idin rajaynayaa hadduu alla idmo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.